kulantii waxaana wanaagsan idin ahaan baa khiyaarta sida tooska loo dhageysanaysay halkan waa shabakada caalamiga ee dhexnimedia.com kuna soo dhawaada wararkii toddobaadkan idin akhriyo doono anigoo ah Cabdiraxmaan Rashiid Mr. Dalmal waa galabnimo khamiisa saacaduna ay tahay 5 iyo barkii galabnimo 4 bisha 8 2016 qodobada ugu doorkoreen toddobaadkan wararkeena waxaa kamid ah Mareykanku askartiisa qaar kamid ah argagixisada ku eedeeyay Obama oo weerar afka ah ku qaaday musharaxa Jamhuuriga ee Donald Trump dalkacayo lagu baaqay inay nabadda ilaaliso qodobada iyo qaar kale ayaa ku maqlayso in ka tirsan booliska gaadiidka ee magaalada Washington ayaa lagu eedeeyay inuu isku dayay qalabka taageero oo aqsiinaya kooxda la baxday khilaafada Islaamka FBI ayaa sheegtay inay ninkan oo lagu magacaabo Nicholas Young oo ahaa Mareykan ugu horeeyay oo ka tirsanaa ciidanka lagu eedeeyay dambiga argagixisada la xiriira waxa lagu eedeeyay inuu iibsanayay kaararka hadiyadaha ee barnaamijyada fariimaha telefoonada mobilada ee dagaalyahanada kooxda khilaafada caawiya ay isla xiriiraan FBI ayaa la socotay ilaa 2010 sanadkii 2011 ayuu Mr. Young Libya la tagay qalabka militariga isagoo la kulmay falaagada isku dayeysay inay xukunka ka tuuraan taliskii Muammar al-Gaddafi Mr. Young ayaa wajihi doona xabsi gaaraya 20 sano haddii dambi lagu helo Mareykanka Barack Obama ayaa weerar dhanka afka ah ku qaaday musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump waxaana uu sheegay in aanu u qalmin hogaaminta dalkaasi toddobaadkii la soo dhaafay xilli Obama ka hadlayay shirweynihii qaran ee xisbiga dimuqraadiga ayuu waxa uu sheegay in la filayo inuu Trump haysto taageerada inta badan xubnaha qolka socodka ee xisbigaasi madaxweyne Obama oo codkiisa ku dhiiriyay dadka Donald Trump ku dhaliilay hadalkii uu ka weeraray qoyskii wiilka askariga ahaa uu kaga dhintay dagaal waxa uu tilmaamay in Trump aanu ahayn qof Mareykan hogaamin kara Obama ayaa ugu baaqay xubnaha xisbiga Jamhuuriga ay iska fogeeyaan Trump isla markaana aanay ka taageero fidinin Trump oo ka jawaabay hadalka madaxweynaha ayaa sheegay in Obama uu ku guuldareystay hoggaanka dalkaasi isagoo intaa raaciyay musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton aanan laga aamini karin hoggaanka dalkaasi Mareykanka wasiirka howlaha guud gaadiidka iyo guriyinta dawladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa ugu baaqay shacabka magaaladaasi gaalkacyo inay ka shaqeeyaan amniga isla markaana u istaagaan sidii ay ula dagaalami lahaayeen kuwa ugu yeeray argagixisada dadka ugu ugaarsada goobaha cibaadada ee masaajidada Cabdirashiid Maxamed Xirsi oo ku amray bulshada gaalkacyo inay xiraan dhammaan luuqyada xaafadaha ama marinada u dhaxeeya labada guri intaasi oo sheegay wasiirka iska marka fal liiti ku ah amniga geysanaya inkastoo uu dhacay waxa uu kula dardaarmay shacabka in lagu baahan yahay sidii ay dawladda ugu gacan siin lahaayeen isugu daamiga isagoo si gaar ah u codsanayay bulshada la shaqeyso maamulka degmada iyo laamaha kale ee gobolkaasi wasiirka howlaha guud gaadiidka ee dawladda Puntland Cabdirashiid Maxamed Xirsi ayaa hadalkiisa ku sheegay kulan toddobaadkii hore kula yeeshay waxgaradka odayaasha siyaasiyiinta qaybaha kala duwan ee bulshada gaalkacyo dhageystayaal waxa intaas lagu eego wararkii toddobaadkan in akhriyay anigoo Cabdiraxmaan Rashiid mustaqbal maalinta toddobaadka kan xiga ku guli doono waa anigoo Cabdiraxmaan Rashiid dalmar oo idinkaga tagay dhamaantood sida ay nabad kaliya